su-aashaas anigu waa falanqeyna laakiin jawaabteeda waxaa iskale mahadsanaa ani afayeen ma hadna ma ihi afayeenka ma hadna ma ihi afayeenka hay'adda nasana ma ihi afayeenka wasaaradda amniga ma ihi wiilkii xitaa ma taqaanaa ka shaqayn jiray idhikaarada hay'adda nisa meel ku dambeeya lama yaqaan ninkii hayay computer systemka dhan waa maqan yahay lama hayo maalin hore waa u tegey taliyaha booliiska u tegey xijaar 45 daqiiqa xafiis ku jirnay ma fahamta waxaana ka soo tegay anoo sawir la gelin siyaarada u tegay anoo sawir la gelin oo saa ii fadhiyo yaan ku mac salaama nabad sugid waxa xukumi jirin la yiraahdo Fahad Yaasin Xaaji Daahir waxaan ognahay waqti uu soo qaatay oo uu soo shaqeeyay hay'adda wax buu ka qabtay haddana ma hasalaad baa joogo maxay ku kala duwan yihiin siyaasi buu ahaa ninka la Fahad Yaasin Fahad Yaasin sidii shaydaanka dhinacna shabaab buu ka dhinaca dawladda ka ah Fahad Yaasin wuxuu aaminsanaa dila xira kutunta aamusiya aburiyo aaminsanaa حوي سراكيش لا شقيسة احترام كم هيسن عبسي يكون نولاين عبسي يكون نولاين لكن دي ما هذا وجد ده ما هذا سوما نقول رسمي يقول ري هيدا النساء برلمان كهرجي شرعي هيدا انت بس انا هدي له وقف شيء هيدا مركي يقول ري هاي شرعي وش قيس وهاي سير انا في السالي جري شرعي كوبش قيجي قف الدل حر عبر اذا عليها ودع سياسيين سو حر وحاسك شقي جري waxaan ognahay imisa maqan intuu joogay imisa saraakiil oo hay'adda nisa ayaa nolol igeer lahayn wax kale iska daay wiilkii xitaa ma taqaanaa ka shaqayn jiray idhikaarada hay'adda nisa meel ku dambeeya lama yaqaan qof sheegtana male warbaahin kama hadasho gacanta Fahad Yaasin ku maqan ha ninkii hayay computer systemka dhan waa maqan yahay lama hayo ha dad baa inta la qaaday oo la dilay ayaa la duugay oo laga warqabay waxaas marka waxaas dawladnimo hay awi hay'adda sirdoonka Soomaaliya aw reportka ay ka sameysay qarixii gobolka Banaadir ka dhacay ee gudoomiyihii gobolka lagu dilay Cabdiraxmaan Yariso aw hay'addu waxay furtay CCTV camera ka furtay ya which kind of marka hay'ad sirdoon ma santahay waxaad sheegtay in hay'addu hadda isbedel weyn ka dhacay amniga muqdishona gacanta ay ku dhigtay waxaan toddobaadkan gudihiisa dhageystay isagoo mucaarada wareysi u bixiyay taliyaha nabad sugidda hadda oo uu ku sheegayo waqtigaas in magaalada muqdisho ay ka taagnaayeen dhibaatooyin ay kamid yihiin isku dhacyada ciidamada bajaajlayaasha muqdisho lagu dilayo iyo xarumaha dawladda oo la weerarayo intiba bishan gudaheeda dhaceen bajaajla waxaa lagu dilay holwadaag ciidamo ka tirsan nabad sugidda iyo military waxay ku dagaalameen garoonka gaarkiisa xildhibaan يوسف كمال عيدنا وقتي قرح هذا اللي قالنا حرمت قبل كبنات الدوام وحق له حبنا الشباب كثير سن إسبدل كداهر جرم حية ويه سؤالش أنا هو فلقينا لكن جوابته حسك المحصرات أنا أفيان ما هالنميه أفيان كما هالنميه أفيان هيدا نسلميه أفيان كوستاد أمن قلبيه مركا تاس سير الجوال لكن حقول شيء يا نبكى دعية الأركان كما يمادو hay'adda nabad sugidda inay kama yimaado problemka wuxuu ka yimaadaa ciidanka booliiska runaan ku sheegay aniga ma baqo maalin hore waa u tegey taliyaha booliiska u tegey xijaar 45 daqiiqa xafiis ku jirnay ma fahamta waxaana ka soo tegay anoo sawir la gelin siyaarada u tegay anoo sawir la gelin oo saa ii fadhiyo yaan ku mac salaama waa ka soo dhaqaaqay ilaahay maadi ninkaas aan soo arkay in uu qalmay inuu dalka ciidanka booliiska hogaamiyo muu ahayd ما فهمت إلى ما أدي مدحونه حلوة قاعدة حلكة نلا جرى الصوب أيار صومك عاب حكر جيني إنه حكب بدل دون نظام البوليس لبكة كتاجن يا بتجلها هنيك الدليل والبوليس كنترول رجع جوجا إيه قرحية يبغى سوق بنا والبوليس كوا حتى عيدك أحير الأركة بوليسك إيه بوليس كده جاينا بوليس مركب حد بربلك وحكت تاجين بوليس وحكت تاي بوليسك مركب الأكل رشده هذا in hadda inta badan control ciidanka nasa lagu wareejiyay ay joogaan waxaan rajaynayaa booliisku in mushaarkooda loo biiriyo tababarkooda aqoontooda loo xayo lana kala hufo lana hagaajiyo marka cilad ka imaanaysa dhinaca booliisku hay'adaha qayb kamid ah ka imaanaysay ay ahayd waxaan aaminsanahay weli inay ragga hore ee dawladda hore rag kamid ah xijaarka yahay ee howlahan ay mataqaanaa ay ku dhex jireen fududeynayeen saas aaminsanahay waa tahay ilaa iyo intee ayuu daahir sii joogaya muqdisho
waxaan joogayaa muqdisho marka shabaab dalka laga saaro in al-shabaab laga saaro Soomaaliya intay qaadan kartaa iyo markay dekedda hobyo dhisanto inta ka horeysa dalkaan joogaya ha ilaa intee ayay qaadan kartaa marka 6 bilood insha Allah laga saaro 6 bilood waa tahay waa maasan tahay daahir sirdoonka ayaad ii sheegtay bilowgii wareysiga inaad aad u jecleed inaad barato oo aad ku shaqeyso maantana sirdoonkii Soomaaliya la shaqeynaysaa sidee kuugu dhalatay inaad sirdoonkaas barato xageesa ka baratay horta markay wax aad baranayso waa hiwaayad waa balwad waa heritage waa qofku wuxuu jecel yahay oo jirkiisa ku beeran anuu yaraantiida waa jeclaa waxa laga yaabaa qof markuu yimaado salaano in aqaano haddaan iraahdo ilaa ayaa taa oo ii sheegay inaan qabiilkiisa aqaano inaan dadku reebtiyaasha aqaano dadka qaarna ay weydiiyaan waxaan saa u kala barataa marka qofku wuxuu u jecel yahay ee balwadiisa yaraantiisa adiga sportska laga yaabaa jeclay ana hadda ay weydiis maanta kooxaha dhahay Arsenal iyo Manchester iyo Barcelona waxa ka sheekay maxamed qadar ka sheekay aniga waxa ka fahmayday ana waxa ka maqan anu ilaa yiraahdo kooxdaas markay ciyaar dharkaasi kuwaas watan waa kooxdaas maqan waa ku wareera Cristiano Ronaldo iyo waxa iyo Messi waxa waa ku wareera meelaha ka maqlaa ma fahmt hadda laakiin maanta ay weydiiso hadda kuwa kii agaasimaha oo sirdoonka Mareykanka yaa ka hay'adda CIA haysta FBI haysta MI6 MI5 yaa haysta Mossad yaa haysta da tiraado AIVD horan yaa haysta Kenya Uganda yaa haysta Djibouti yaa haysta dushan ka xafisana ciyaartooydaas laakiin ay ciyaartooydan kale ya ani ma aqaan marka qof ba hiwaayadu leeyahay Soomaa hada jeeniya markii hadda markaan iska bixino inaan sameyn doono jil cusub oo ka duwan hadda ku jira oo kuwa old fashion ay ku soo shaqeeyeen kuwa ruushka waagi loo qaaday Maxamed Siyaad Barre waxa la baray qofka sida loo garaaco fiiri muqaabaraadka dunida maanta uma shaqeeyo sida muqaabaraadka Afrikaanka u shaqeeyaan muqaabaraadka Afrikaanka qaarkood waxa lagu tarbiyay in dadka xoog wax loo keeno badda lagu rido biyaha la geliyo saas adduunka mamnuuc ya hadin baarista habka duwanaa habka sirdoonka loo shaqeeyana adigu guriga ma aragtay sirdoon oo kaar wato ku dhahay ani sirdoon ah ninka sargaalka ah ee sare ama ninka takhasuska ah expert-ka ah ee banaanka yaalla wada og sheeg kara laakiin underground iyo room risk dadka loo yaqaano ma dhihi karaan sirdoon ah iminka waxaynu ku aragnay Soomaaliya nin wata ID card oo habarta qaadka soo dhahayo sirdoonka u shaqeeyo waxa ku sii doonaa si jadkii taas waxa macnaheedu hadi in la gudbo oo Soomaaliya yeelato sirdoon kan tuugsanaya kan bajaajlaha ah kan mataqaana xanuunsanaya meelaha iska joogo islaanta waayeel dhalinyarada kale ee caanka ah ee wax bartay inay si cabsi la'aan ku yimaadaan iyagoo dhihi kara waxaan nacsi taliya sirdoonka marka fariin baan u dirayaa anaga inna kama baqayno shabaab fariin baan u dirayaa shacabka dhalinyaradu si igu daydaan waxna qarimayno daahir adigoo bartay sirdoonka ayaad haddana inta warbaahinta soo fariisatay waxaad ka sheegtay in taliyaha nabad sugidda kugu yeeray in jaga noocaas aad jeclaan lahayd in jaga nooca lagu magacaabi doono oo wada hadal dhexmar adiga taliyaha nabad sugidda aad warbaahinta ka sheegaysaa cilmiga aad baratay aawi maxaad ugu dhaqmin sida ani baasha munaafaqada la yiraahdo ma aqaano sirna kuma dhex jirto ma hasalaad la ogyahay xiriirka naga dhaxeeyo waxa isku nahay iyo saaxiibtinimadeena in hadii la weydiiyo ayaa casuun waxba kuma jirto sabta asaab suuliga waxaan wato waa gaarigiisi waxaan wato waa ciid staafkiisi dadku dabaal ma moogta marka waxyaabaha luuska keena oo qofku macna beelo waa been waxa la qofku been iska dhaaf wixii beena aniga fiiri farcad waxa isweydiisaa way ani markaas star ah social media dadka oo public figure ka ee halla maxaan oo xidig adamin imisa wariyo caana taqaana oo BBC soo shaqeeyay oo Facebook lagu shaqeeya oo idaacadihii ka wada shaqeey jiray way ay maanta aniga oo wiil rag celkiin baar maalkiimid way ay dhageystaan oo aniga dadka ay wada jecel yihiin waxa weeye qofka markaad been sheegto maarta macna badan yeelimis ala qofku inuu wuxuu ka hadlayna Ilaahay uga baqo runna sheego marka ay tiraahdo daahiro yaa ku casuum haddaan iraahdo qof ma casuum maxana qof been lahaana qofku casuum sheeg dhiirigelin waxay u tahay dhalinyarada waxay fariin u diraysaa shabaab in laga baqay laakiin haddaan dhihi lahaa waxaan u wallahi inaan xamar iska arko
waxaa lahaa odaga shabaab ka baqa mas koo waxay leedahay daahir cala soomaalida difaac u galay wuu baqa nimankii arsenal ku baqa walani arsenal ka baqa ma hooyadan ka baqa ma ani meesha xaniyiga ku jooga horna u sheegi jir hadda u sheega ani qofka ugu dambeeyay ama shabaab dilayaan ama la dagaalayaan ha waa tahay su-aalo kale oo ku saabsan sirdoonka waxaan u dhiga doonaa qaybta dambe oo ka bedelan kuwa hadda aan ku weydiinayay waa tahay dalka waxaa ka socda dagaal ka dhan al-shabaab muddo 8 bilood ayuu dagaalku hadda socdaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud meelaha qaar dagaalku uu ka guuleystay sida gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe inkastoo meelo qaar weli ay ku harsan yihiin kooxda al-shabaab sideed u aragtaa in waqtigan shacabkii iyo dawladdii ay si wada jir u wada shaqeeyaan oo ay ku dhiiradaan inay la dagaalamaan al-shabaab horta waxaa rabaa madaxweyne xashiq inaan mahad celiyo madaxweyne xashiq sayidka nool buu noqon doonaa waxaan u maleeyaa madaxweyne xashiq isagoo nool haddii hawshan 6 bilood gudahood noo soo dhamaato oo nimanka cirib tagno taale loo dhisi doonaa taariikh fiican oo laga qorna uu ka tagay xashiq halka ay qor macnaha wuxuu sameeyay wax la yaab leh oo la filin nimanka horta marka hore xasan inuu la dagaalo qorshaha uu jirta daxo ku hay wey laakiin iyaga joog waa maanta yimid waxbaday bilaabeen jawaabta ka dhalatay yaa la socota hadda fiiri culimadii baa la isugu yeeray kaalaya fadwa ka soo bixi doonto maanta fadwo yaa ka soo bixi doonta dhigi doona shabaabku waxay wataan diin ma aha islaamnimada meel kama soo gasho in culimo adduunka laga keeno meel kasta oo North America Europe Australia Asia Africa kulli la kala soo keeno ilaa gobolada dalka oo dhan ilaa semester gola alladin iyo semester kadibna ma taqaanaa muftiga dalka in la yiraahdo waxay qayb waxa ugu daran ee ay necab yihiin maanta wax kasta weerar way sameyn lahaayeen ay ku jeedinayaan attentionka culimada laakiin amniga u diiday gacan bira lagu hayaa madaxweynaha waxaad ogtahay waxyaabaha uu sameeyay naflahornimada inuu intuu baxay oo sacad ka joogay wasil u tagay ka waran 700 oo askari oo maleeshiyada oo hubaysan oo qabiila inuu madaxweynaha dalka isku dhex aamin ya oo qof kasta ka soo dhex bixi karto